muuqaalka magaalada Kaabul sidan ayuu isu rogay kadib isbedeladii waaweynaa ee dhinac kasta ahaa ee habeen hore ka dhacay iyadoo dhaqdhaqaaqa Taliban ay gacanta ku wada qabteen guud ahaan dalkaasi si gaarana ay u kantaroolayaan caasimadda Kaabul. Taliban waxay ku sifaysay wadciga waddanka mid degan waxaana ay beenisay inay haba yaraatee wax iska horimaada la gashay dhinacna hadday tahay ciidamadii hore ee xukuumaddii dhacday amaba dad shacab. guud ahaan dhismayaasha xukuumadda iyo baraha laga kantaroolo magaalada caasimadda ayay gacanta ku hayaan kooxda Taliban iyagoo caasimadana sidaa gacanta ugu wada qabtay iyagoo aan haba yaraatee hal xabana ridin amaba hayar amaba aan dhicin khasaare nafeed iyo mid maadiya. Isniintii maanta waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqa Taliban oo ay ka bilaabeen caasimadda Kaabul ururinta hubka ku jira gacmaha dadka rayidka. waana xilli madaarka magaaladaasi ay xiisad xumi ka taagan tahay oo kumanaan dada oo doonaya inay ka baxaan waddanku ay isku celiyaan diyaaradaha kala duwan ee wadamada reer galbeedku ay ugu talagaleen inay diblomaasiyiintooda ku qaataan. isku daygii ay kumanaan ka mid ah dadkaasi isku dayeen inay khasab ku fuulaan diyaaradaha iyo istiidhkii dhexdooda ahaa ee dhacay ayaa la sheegay inuu sababay dhimasho iyo dhaawac iyadoo qof waliba isku dayayo inuu diyaaradda taagan fuulo sax iyo khalad. diyaaradihii yaallay madaarka ee loogu talagalay in lagu samanto bixiyo diblomaasiyiinta shisheeye ayaa waxaa buuxdhaafiyey oo iska buuxdhaafiyey dadweynihii reer Afghanistan ee doonaya inay dalka ka baxaan. waxaana la arkayay dadweynaha oo isku dayaya inay fuulaan diyaarad xamuul oo ay ciidamada Mareykanku leeyihiin iyadoo xitaa markii ay damcday inay kacdo ay hor dib iyo dhinacyada mid walba ka raaceen oo ay hoosteeda ordayeen taasoo ugu dambeyntii keentay in diyaaraddu ay rasaas farabadan rido si ay dadka isaga leexiso oo ay u kala didiso dabeetana u furato dariiqa ay mari lahayd. waana xilli militariga Mareykanku ay ilaa 6,000 oo askari soo duldhigeen garoonka diyaaradaha ee Kaabul si ay u suurageliyaan inay qaadaan oo samata bixiyaan diblomaasiyiintooda iyo dadka u dhashay Mareykanka ee si kale kaga shaqeynaya gudaha waddankaasi sidoo kalena ay halkaa uga qaadaan dadweynihii reer Afghanistan ee la shaqeynayay kuwaasoo ay Mareykankuna aaminsan yihiin inay khatar ku sugan yihiin. madaxweynihii cararay ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu uga baxay waddanka si loo yareeyo ama aanay u dhicin in dhiigga dadka reer Afghanistan ay daata markii ay buuyidhi ay ku soo dhawaadeen kooxda Taliban magaalada caasimadda. dad goobjoogayaal waxay sheegeen in diyaaraddii qaaday madaxweynihii hore Ashraf Ghani la waayay meel laga fadhiisto kadib markii laga buuxiyey jawaano ay lacag ku cabaysan tahay oo uu madaxweynuhu sitay. lacagta oo ugu yaraan 4 gaari ay sideen oo ay geeyeen madaarka. waxaana la sheegay in markii ay buuxsantay meel la kala dhigay lacagtaasi la waayay dib loo soo daadiyey jawaanada qaarkood oo kaabadihii diyaaradda laga fuuliyey dib loogu soo tuuray. safaaradda Ruushka ee magaalada Kaabul waxaa isniintii 16 bisha August ay sheegtay in madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani markii uu cararayay ee uu dalka ka baxayay uu madaarka u sii kaxaystay 4 gaari oo maal fara badan sida iyadoo maalkiisaasi markii uu qaadi weyday diyaaraddii ee ay xajmigii diyaaradda ay ka bateen lagu daadiyey garoonka diyaaradaha dhexdiisa oo dib looga soo daadiyey diyaaradda. madaxweyne Ashraf Ghani ma sheegin meesha uu ku sugan yahay iyo waddanka uu tegay toona laakiin waxa uu sheegay in sababta uu tegay ay tahay inuu ka fogaado sidii looga fogaan lahaa in dhiig la daadiyo kadib markii ay dhaqdhaqaaqa Taliban ku soo dhawaadeen qasrigiisa magaalada Kaabul. Ruushku waxay sheegeen in diblomaasiyiintooda ay ku sugnaanayaan magaalada Kaabul oo aan loo baqaynin isla markaana ay xidhiidh horena ula lahaayeen haatan la sameeyeen maamulka Taliban ee dalka la wareegay. wargeyska Washington Post ee dalka Mareykanka oo wax ka qoray sababaha keenay guusha degdega ee kooxda Taliban ay ku qabsatay waddankii kuna soo gashay caasimadda ayaa waxa uu sheegay wargeysku in arrintaasi ay ku timi natiijada dadaal badan oo ay dhaqdhaqaaqa Taliban sameeyeen oo ay xidhiidh la sameeyeen hadidaadna ku sameeyeen ciidamadii Afghanistan
ee difaaca ku jiray kuwaasoo ay dhibaatooyin fara badani haysteen markii ay danayn waayeen siyaasiyiinta sare ee waddanku. waxaana Washington Post ay leedahay ciidamada Afghanistan waxay wadada u fureen dagaalyahanada Taliban si ay u soo galaan caasimadda waddanka, iyadoo weliba ay jirtay inay Maraykanku 20 sannadood maalgelin iyo tababar ku hayeen ciidamada Afghanistan oo ay balaayiin dollarna ku kharash gareeyeen hubka noocyadiisana ay siiyeen. ugu dambeyntii laakiin ay ama isdhiibeen ama carareen amaba aanay samaynin wax iska caabina oo aanay dagaalamin. ciidamada Afghanistan qaarkood waxay ka waramayaan in taliyayaashooda sare awaamiir ku siiyeen in aanay dagaalamin iyo in ay wadada u furaan oo ay isu dhiibaan dhaqdhaqaaqa Taliban. wasiirkii difaaca ee Afghanistan ayaa isaguna waxa uu dhaliil dusha u saaray madaxweyne Ashraf Ghani, waxaana uu sheegay in intii wax la qaban karayay uu isagu gacmaha ka xidhay ciidanka iyo saraakiisha guud oo dhan. ugu dambeyntiina uu khiyaameeyey oo iyaga oo furintii ku jira uu diyaarad ka raacay oo waddankii ka baxsaday. waxaana uu sheegay in kooxda Ashraf Ghani iyo intii la shaqaynaysayba ay yihiin dad khiyaameeyey waddankooda.